wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mid kamid ah barnaamijyada sida tooska uga baxa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland habeenkan caawana daawadayaal waxaad barnaamijka idinla socodsiin doona anigoo Jamaal Axmed Naasir daawadayaal qodobada muhiimka ee barnaamijkan iyo habeenkan caawa ku soo qaadan doona waxa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud iyo waliba ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Haile Mariam Desalegn oo dood ka yeeshay horumarinta dekeda Berbera waxa karoon daawadayaal ku soo qaadan doona saraakiil ka socota shirkad laga leeyahay wadankaasi Imaaraadka Carabta oo sahamin ka fulin doonta dalkan Soomaaliland xubnahaas iyo xubno kale doora ayaan idinku hayaa daawadayaal barnaamijka haddaan daawadayaal soo qabto xubinta ugu horeysay barnaamijkeena wargeysadii habeenkan caawa waxa wax ka qoray wargeyska Jamhuuriya isagoo ku qoray tirsigiisii maanta soo baxay oo ahaa 5339 wuxuuna ciwaan uga dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud iyo waliba ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Haile Mariam Desalegn oo dood ka yeeshay sidii loo horumarin lahaa dekeda Berbera haddaba daawadayaal wargeysku isagoo amuurtan ka hadlaya waxa uu ku bilaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud ayaa wada hadal ku saabsan horumarinta dekeda Berbera kula yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Mr Haile Mariam Desalegn magaalada Addis Ababa oo safar gaaban ku tagay Jimcihii madaxweyne Silayo oo maalintii Jimcihii booqasho ku tagay dalka Itoobiya isla markaana la filayo inuu hadda maanta ku soo laabto Hargeysa ayaa kulan muddo dheer qaatay magaalada Addis Ababa kula yeeshay ra'iisul wasaaraha wadankaasi Itoobiya Haile Mariam Desalegn kuwaas oo ka wada hadlay qodobo badan oo muhiim u ah xiriirka labada dal madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii kulankaasi dhamaaday warbaahinta uga waramay waxyaabaha ay kaga wada hadleen ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxa uu waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay wada hadalka wax wada qabsiga labada dal ee aanu isla gaadhnay xiriirka Soomaaliland iyo Itoobiya ka dhaxeeya waa mid wax wada qabsi ku fadhiya waa mid iminka in aanu sii xoojino mustaqbalka oo aanu halkii hore uga sii talaabsano oo dhinac walba oo leh horumarka labada dal iyo wada shaqayntooda haddii ay tahay xagga ganacsiga isticmaalka dekeda wadooyinka ka wada shaqaynta nabadgelyada iyo dhinac walba in aanu wax ka wada qabsano ayaanu isla garanay ayaa uu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad ayaanu ugu faraxsanahay insha Allah waxaanu rajaynaynaa inay wax wada qabsiga iyagu sii kordho oo noqdo wax tar labada dhanba faa'iido u leh oo anfaca ayaa uu hadalkiisa sii raaciyay madaxweynuhu waxa kulankaasi ku wehelinayay xubnaha wafdiga Soomaaliland ee magaalada Addis Ababa u joogay si ay uga duulaan dalka Turkiga oo ay wada hadallo kula yeelan doonaan dawladdaasi aynu jaarka nahay ee Soomaaliya waxyaabaha kale ee lagaga hadlay kulanka dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa kamid ahaa sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada badan u dhaxeeyo ee labada dal iyo in la diyaariyo hawshoodana la bilaabo guddi wasiir ah oo labada dal ka kooban oo hore loogu xil saaray inay ka shaqeeyaan xiriirka labada dal gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda ammaanka iyo ganacsiga haddaynu daawadayaal intaas kaga nimaadno xubinta ugu horeysay barnaamijkeena wargeysada iyo habeenkan caawa xubinta labaad ee barnaamijkeena ku soo qaadan doona daawadayaal waxa qoray wargeyska saxan saxo ee ka soo baxa magaalada Hargeysa waxaanu ciwaan uga dhigay saraakiil ka socota shirkad laga leeyahay wadankaasi Imaaraadka Carabta oo dalka ka bilaamaysa sahaminta shidaalka iyo waliba gaasta haddaba daawadayaal wargeyska saxan saxo isagoo amuurtan faaqidaya waxa uu ku bilaabay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland ayaa maalintii shalay xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda shirkadda Roggas oo ah shirkad sahamin shidaal ka bilaabaysa Soomaaliland wasiirka macdanta Xuseen Cabdi Ducaale oo ka hadlay kulankii uu la qaatay wafdiga ka socday shirkaddan Roggas oo laga leeyahay wadanka isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu sheegay inay shirkaddan Soomaaliland ka caawin doonto sidii loo baari lahaa
dhulka ay gaastu ku jirto ee Somaliland. Xuseen Cabdi Ducaale oo ka hadlay kulankaas uu la yeeshay saraakiisha ka socotay shirkadda Roggas waxa uu yidhi ka wasaarad macdan iyo tamar ahaan waxaanu ku soo dhaweynaynaa wafdi hordhac u ah oo ka socda shirkadda la yidhaahdo Roggas, taas oo ah shirkad caalami ah oo nagala shaqayn doonta blogyo ka mid ah dhulka Somaliland oo kala ah SL9 iyo SL12 kuna yaala gobolka Saaxil. labadan sarkaal ee ka socda shirkaddan oo shalay toole dalka soo gaadhay ayaa waxay shaqadii kala wareegi doonaan shirkaddii la odhan jiray Ofil oo iyadu markii hore haysay mas-uuliyadda blogyadaasi, shirkaddaas oo ka gaabsatay inay dalka Somaliland ka shaqayso. sidoo kale madaxa shirkadda Roggas Dr. Osama oo isaguna kulankan ay la qaateen wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay kulankan, waxaanu xusay inay shirkadda Somaliland ka caawinayso sidii loo heli lahaa deegaamada ay gaastu ku jirto. xukuumadda Somaliland ayaa toddobaadadii ugu dambeeyay heshiisyo kala duwan la gashay shirkado caalami ah kuwaas oo dhulka Somaliland ka baadhi doona shidaalka iyo gaasta, isla markaana saameyn ku samayn doona deegaamada laga heli karo shidaalka iyo gaasta, ayaa wargeyska warbixintan qoray kusoo gabagabeeyay. wargeyska haatufna cadadkiisii maanta soo baxay oo ahaa 3497 waxa uu ku soo qaatay hogaamiyaasha adduunka oo si kala duwan uga hadlay dhimashada ra'iisul wasaarihii hore ee wadankaasi Israa'iil. haddaba daawadayaal, wargeyska haatuf isagoo amuurtan faaleynaya waxa uu u dhigay hogaamiyaasha adduunka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dhimashada ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Sharon oo shalay ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil oo muddo 8 sano ah ku xanuunsanayay kuna jiray xaalad miir doorsoon ah. hogaamiyaasha Israa'iil ayaa amaanay Sharon halka Falastiiniyiintu ay muujiyeen dareen ay ka qoomamaynayaan in aanu keenin wax cadaalad ah dhimashadiisa ka hor. wargeyska haatuf isagoo amuurtan sii wada waxa uu yidhi waxaana odhaahyo kala duwan ee ay ka imaanayaan xilliga uu geeriyooday Ariel Sharon madaxda adduunka. ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka Israa'iil isla markaana ahaa taliyaha militariga ayaa shalay ku geeriyooday isagoo da'diisu tahay 85 jir kadib markii uu miir doorsoon ku jiray tan iyo 2006 xilligaas oo uu ku dhuftay xanuunka faaliga loo yaqaano amaba uu madaxa dhiig kaga furmay. qaranka Israa'iil waxaan u sheegayaa inuu dhintay hogaamiyahoodii hore Ariel Sharon, sidaasi waxa yidhi ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, kaas oo intaa ku daray inay aad uga xun yihiin dhimashada hogaamiyahoodii hore. xusuustiisu weligeed ka bixi mayso. Israa'iil ayaa uu raaciyay Netanyahu, hase yeeshee ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas oo ku wajahan geerida Ariel Sharon, balse sarkaal sare oo ka tirsan Falastiiniyiinta kana mid ah xisbiga Fatah ayaa ku eedeeyay Sharon dhimashada hogaamiyahoodii Yaasir Carafaad. Sharon waxa uu ahaa dambiile waxaanu mas'uul ka ahaa shirqoolkii Carafaad. Khaliil Al-Haya oo ah hogaamiyaha Xamaas ee Gaza ayaa yidhi waxaanu ku xasuusan doonaa raggii uu laayay iyo burburkii sababay baaba'a jiilka Falastiin. sidoo kale madaxweyne Barack Obama ayaa tacsi u diray dadka reer Israa'iil iyo qoyska Sharon uu ka geeriyooday, ayaa wargeyska haatuf leeyahay. wargeyska geeska Afrikana bogiisa ciyaaraha daawadayaal waxa uu ku soo qaatay koox Sacuudiyaan ah oo doonaysa inay la wareegto xidiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi. haddaba daawadayaal, wargeyska geeska Afrika isagoo bogiisa ciyaaraha ku falanqeynaya waxa uu ku bilaabay shabakada Isbaanishka ah ee lagu magacaabo Trilosta ayaa habeen hore shaaca ka qaaday war aad loola yaabay kadib markii ay shaacisay in laacibka kooxda Barcelona Lionel Messi uu dalab ka helay kooxda Al Hilal ee dalka Sacuudi Arabiya, kuwaas oo doonaya inay ku soo dalbadaan laacibkan qiimihii hore la shaaciyay ah inuu ku joogo oo ah 400 milyan oo euro oo u dhiganta 2 milyaar oo lacagta Sacuudiga ah si ay ula wareegaan laacibka reer Argentina sanadka 2016.
shabakada ayaa sii shaacisay in kooxda ugu taageerada badan sacuudiga ee al-hilaal ay dooneysay inay sugto towlaacibkan ka dhacayo heshiiska kooxda oo ku eg 2016 waxayna doonayaan inaanu u cusboonaysin Barcelona iyaga oo diyaar u laha inay bixiyaan lacagta ay dalbato kooxda Barcelona oo hore u sheegtay in qiimaha Messi uu yahay 400 milyan oo euro. lama oga go'aanka uu qaadan doono laacibka reer Argentina ee Lionel Messi haystana xidiga adduunka 4 jeer ee isku xigta. kooxda al-hilaal ayaa doonaysa inay bixiso wax kasta oo uu dalbado Lionel Messi si ay ugu qanciyaan inuu u soo dhaqaaqo dalka Sacuudiga sanadka 2016 marka uu dhamaado heshiiskiisa uu ku joogo kooxdaasi Barcelona. mar kale iyo waliba wargeyska geeska Afrika ayaa boggiisa ciyaaraha waxa uu ku soo qaatay ciyaaryahanka reer Poland ee Lewandowski oo ilaalo gaar ah yeelanaya waxaana uu yiri wargeysku waa maxay sababtu. haddaba daawadayaal isagoo amuurtaasi gudaha ku sii faaqidaya waxa uu dhigay weeraryahanka reer Poland ee Roberto Lewandowski oo laga cabsi qabo halis kaga imaan karta taageerayaasha kooxda Borussia Dortmund ayaa samaystay ilaalo gaar ah kuwaas oo ka hortagi doona haddii ay halis kaga timaado taageerayaasha kooxdiisa Dortmund. xidigan waxaa walaac xoogan ka abuuray sida cadhada ku dheehan tahay ee taageerayaasha kooxda Borussia Dortmund fikirkooda uga dhiibteen go'aankii uu ku doortay inuu Bayern Munich si xor ah ugu biiro markuu xilli ciyaareedkani dhamaado maadaama qandaraaskiisa uu xilligaas dhamaan doono. wargeyska Dabil oo wargeyskan geeska Afrika soo xigtay ayaa shaaca ka qaaday inuu xidigan lacaga badan siin doono rag si gaar ah ammaankiisa u sigi doona inta uga harsan xilli ciyaareedkan maadaama 6 bilood ay qandaraaskiisa uga harsan tahay. 6 biloodna waxa uu ka sii mid ahaan doonaa kooxdaasi Borussia Dortmund. Lewandowski ayaa si fiican uga dharagsan godoodkii ay taageerayaasha kooxdani sameeyeen xagaagii hore kadib markii Mario Götze uu ku biiray kooxdaasi Bayern Munich. sidaa darteedna xidigan go'aan geesnimo leh ayuu ka qaatay ayaa uu leeyahay wargeysku maadaama uu heshiis la sii gaadhay kooxda Munich isagoo kooxdan Borussia Dortmund ka sii mid ahaan doona inta ka dhiman xilli ciyaareedkani. intaas daawadayaal waxaa nagaga idil oo aan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii wargeysyada amaba jaraa'idada ka soo baxa dalku waxyaabaha ay qoraan isla maalintaasi. barnaamijkan barnaamij lamida intaynu iskugu iman doono kamaradaas iyo lightinka waxaa hadayay cabdiraxiin muuse yuusuf cabdiraxiim yare waa habayntii iskuduburidkii maxamed ibraahim dhimbiil anigoo jamaal axmed naasir ayaa daawadayaan barnaamijka halkan idinka soo tabinayay is aragti maqal dambe ka hor. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.